soonkii carafa wuxuu ku soo hagaagay buu leeyahay saa'ilkani maalin sabti ah rasuulkuna sala allahu calayh wasalam waa kii nahiyey in la soomo maalinta sabtida ah haddii aanay ahayn dabcan soon waajib ah ma saxiix baa xadiiskaasi mise waa daciif yani xadiiska sabtida ku soo arooray ma la soomi karaase يوم السبت صونك للسوماي حديث بقصة الشيء لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم هالسومين مالنت السبت ذا كلا إذا كفر الليلة وحان أهين هالسومين حديث كعلماء قاركود وضعيفين أو حيلا ومعلول بعض الأئمة أي ضعيفية يقولوا معلول waxay u jeedaan cilla qaadixa ayuu leeyahay culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waa mudarib bimacnaa waa daciif xaafid ibnu xajar wuxuu ka mid yahay culamada tiri waa mudarib oo mudarib ulisnaad mudaribkuna wuxuu ka mid yahay min qismi daciif bacdu ahli cilmi waa saxiixiyana waa sugeen xadiidka laakiin culamada saxiixisay laftoodu waxay isugu khilaafeen qaar yidhi waa mansuukh سيدي أبو داود أو كذا أو غيره يقاري يريه وحلوقت شذا إلا فيما افترض عليكم قار تأولي أي ندبك الشيء دون يقار ترجيح سمية ويري حديث كان يا حديث تكلا الصون كصبتي سبنين يسه وححوق بدن أحاديث كلا بنايس أحاديث قاركودا صحيحة كسرني وحي الشيء مالين تجمعها كلي قدنا للسومين أما مالين كهر رئيس الله الصوم أما مالين كدم بيس الله الصوم مالين تكدم بيس أنا وصبتي مرك أحاديث متعددة أو قصة أرورتها شرتها أحاديث الجويرية وغيره كمديهين صون كالصبت ذا إن نوض سنها إن نوض ممنوعه سأسأوذ جماهير أهل العلم وحي قبان صون كمالين تصبتدو إن حاران أهين على الإطلاق أما الشيخ الألباني سوى حوكتغي لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فرر إن يتهموا يانا سكركم بنان بولي وحانو تأوكتغي من باب الترجيح الحاضر مقدم على المبيح لكن صحيح وحي تهي إن أنصون كالسبت حاران أهين على الإطلاق قاعدة أشوخ الشيء عن سيرة الشرعية حديث كان شيء لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وحاضر وحاران تنمي ومديدة ينهي إن الصوم صونا انفر الأهين مالين سبتئة إلا أن تصوموا إلا يوما قبله إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده حديث كالشيء يعني هو مبيح وحبنينا يا سبت إلا الصوم مركا خاصة جمعة الله ولا رأي حديث دليل حاضرة أو شيء ديدة وحران تنمين يا دليل إباحين يا هذا إسعاردان ولا تجمعين كرواينا سيدا يوكله الرئيين للقرن واينا سيالها لقوك الأرجح وحكم ذا الحاضر مقدم على المبيح كحران تنمين يا لقهر مرين يا كإباحين يا بنين يا ويا كمبيحة هو مبق على الأصل ومن أصل كي وحكب باقي لي يكرهب يكسغيا حاضر كنا وناقل عن الأصل وأعطي عبارة لك عبران الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل كأصل كوحكرر إياه وحلقه مرين إياه كأصل كوحكب باقي لي ويا شيغا انت اللي النهيي هدنا إلا إباحي يا إلا يلاهدو والله والنقل لغو سمي وأصلك انت لغا نقليه هدنا أصلك لوسو نقليه والله والنقلي
iyo in mar qura la naqliyey oo daliilka asalka waafaqsana ibaaxada waafaqsanna uu yahay kii hore kan kalena uu ka dambeeyo hal mar la naqliyey waxay ka awlaysantahay in la helo laba goor baa la naqliyey wajhatu nadarka sheekh al-albani saasuu ku dhisay jamaahiru ahli cilmi waxay mareen soonka maalinta sabtida la soomaa sunni hadduu waafaqo ama soonka sabtida aan lagu gaar yeelayn ee maalinta ka horeysa ee jumcaha iyo sabtida la isla soomay ama maalin soonkeeda la sunneeyey uu waafaqo ashyaada noocaas inay tahay mid mashruuca oo mustaxaba inay tahay xaalka laakiin sabtinimo loo soomayo inay makruuh tahay bay culamada qaarkood mareen waxaana yidhaahdeen labadan daliil waa in la kulmiyaa waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskhun buyina saaxibu lmaraaqi waa ka odhanaya alfiyada usuulka jamcigu waa waajib markuu suuro galo hadduu jamcigu suuro geli waayo ka dambe ayuu u sugnaaday naskhi oo naasikh noqonaya kii horena mansuukh buu noqonaya marka jamcigu waa ka horeeyaa naskhiga iyo tarjiixa mid walba waayo jamcigu waa icmaalu lidaliilayni macan labadii daliiloo labadaba la wada camal siinayo weeye naskhiguna waa labadii daliiloo mid la camal siinayo midna camal falka laga tuurayo aan lagu camal falaynin wakada tarjiix waa la mid labada daliil labadaba in la wada camal siiyo laga shaqaysiiyaa oo lagu camal falana waa ka fiican tahay mid ahaan in lagu camal falo ka kale laga tago waatay culammadu yidhaahdaan qaacide ahaan icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiyaa waxay ka awlaysantao ka mudan tahay ama ka fiican tahay in midkoodna la camal siiyo midka kalena camalfalka laga tuuro oo lagu camalfali waayo naskhiguna sidiisaba waa khilaafu alasli asalna waxa uu adilada sharciyadu inay muxkamo taha u asala alaslu fi ladillati alixkaam waatay culammadu yidhahdaan asal waxa uu adilada sharciyadu inay muxkamo tahay baa u asala inay muxkamo tahay inay asal u tahayna waxaa laga qaadanayaa aayatu ali cimraan huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaabi ukhra mutashaabihaat saas aawadeed waa in la jamciyaa labada daliil culamada qaar waxay ku jamciyeen inay yidhaahdaan ilaa fiima ifturida calaykum waxaa looga jeedaa ilaa fiima shurica lakum siyaamuh wixii soonkiisa laydin sharciyeeyey mooyaane shay kale ha soomina sabti oo takhsiisaa sabtinimo u soomaysaan ha la imanina waayo ifturida bimacnaa shurica waa lagu fasiri karaa qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum ay sharaca looga jeedo marka farada oo bimacnaa sharci maadaamay jirto ifturidana waxaa laga tilmaamaya bimacnaa shurica saas aawadeed sida saxiixi waxay tahay haddii yowmu carafa ay ku beeganto ama yowmu cashuura ay ku beeganto maalin sabti ah in la soomi karo dhibina aynay ku sugnayn sidaas iyadaa ayaa saxiixa hadduuba xadiidku asaxo oo sida sheekh albani iyo culamada qaarkood ay marayaan laguba tago yacni lama odhanayo axaadiistii kale wuu nasakhay waayo inuu ka dambeeyey naqli saxiixa uma hayno lamana odhanaayo isaga ayaa la arjaxayaa waayo tarjiixa iyo naskhiga labada mid walba waxaa ka horeeya jamciga la kulmiyo ayaa ka horeeya marka sida jamaahiirta ayaa fiican mas'aladaasoo saxiixa wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekhana